dhawaan ayaan waraabala hadalka laftiisii ku soo arkay magaalada Balligubadle oo ah magaalo madaxda gobolka Hawd ninkaasi oo la yiraahdo Xasan Nuur Amare ma aha oo kaliya waraabala hadal ee sida la ii sheegay isaga qudhiisuna uu iga waramay waxa uu aad ugu xeel dheer yahay dawad dhaqameedka iyo waliba xidigiska sheekadina dhaxmartayna sidan ayay u dhacday waxaan ku magac dheeray Xasan Jafel markii ugu horeysay waxaan ahaa professor xaggan qoraalka birta iyo qaabkan hidda dhaqameedka ah ee la qoro qoraalka marka jabninka lafaha aad kabta mooyaane waxa la ii sheego kale in lafaha madaxoo kale dadka dhaawacyadu ay ka gaadhaanna inaad gurto taas aad u samaysaa waan guraa waxaan ku sameeyaa oo kale oo waliba aan aad u sii dawad dhaqameed qaabkan dhirta oo kale ee waxa jirta qaar madaxa faash kaga dhacay amba ilaa xagga kale ka dilaacay haddii kulka aan la soo gaadho dhirta isla markiiba inuu qofkaasi qaar kaba mida ay magaalada iyagoo dhacsan markii aan sida mariyay markiiba qayl tageen wadanka waxa dib horta ku nool oo dhan inta dhaqaatiirta oo in Hargeysa ka sokaysa aniga kulkul baabi ma jeesi soo diraan ilaahan kaalayo dadkan iyo soo dhaadhaco xagga ka shaqee waxyaabahan ma aha wax baratisa ma aha qaybahan markaan waa ku shaqeeyo marka si qiyaasto waxaad moodaysaa qaar koodii in karaamo ku jirto sababtaas ay ku wadankan aan ku nool lahaa oo dhan waxa laga yaqaan Sheekh Alfaa waayo ninkaasi ayaa markii aan yaraa wixii tusi jiray dhiraha qaar kamida qaar qoladan xagga imka junuudaha jinka kale loo isticmaalo qaar loo isticmaalo xagga lafaha qaar loo isticmaalo nabaradan ay dhaqaatiirtu markiiba kula cararaan dadka ay yiraahdaan waa kansal qaar loo isticmaalo ilkaha cunitaankooda cunaha iyo xoqada kale qaar loo isticmaalo waxaas marka ay bari jiray waxaanu yoolan jiray insha Allah markada 40 gaadhabaad ku shaqeyn xagga dhirtan ilaa maana 40 gaadhaba ma bilaabinba waxa hadaba cajiib leh geedkan madaxa la saaro ayaa nin anigu biyadhaamski gaadhi booyada wata ayuu nin igu yiri niyow gaadhiga ka soo dego markaasaan ku dadkii xooliyaan gaadhigan la gaadhay warba ka soo dego aan dakhranay geedkii soo saar gacanta qabto waxaan ku geedka waa kana la baxnayo sidaa yeel dibadna adhigaaga neefka gowrac ku dar inaan kaaga madaxa iga saardhe dabadna isla markii aan biyo shubayo sidii yeelay bartan bankay haydo ninkii waxa la yiri koomu ku jira isla kolkiiba markaasaan ku wargeedka hayga daadin anaga la noo sakhreeyo dabadna waan ku noqday ninkii oo koomi ku jira ayaan ku war ka sii mayd markii laga maydho isagoo indha kala qaaday ayaan sidaa u mariyay intan gaadhiga kaga dul tagayo kulka suudina ka radabad gumburuu qayl tagtay maxaa la yiraahdaa geedka magaciisa markaa geedka waxa weeyaan geedde dadka in loo wada sheego dhirta maaha sababtaas oo haddii marka dadka dhirta loo wada sheego waxaan way isfasaqayaan laakiin si gaar ah Cabdisalaam ku sheegay dalka dhawaytana kala u bixin laakiin dadka waxaan ku yiraahdaa aniga waxa igu lifaaqan bal sidaasi dhirtan dadka ku sacaynaa waa kuwane bal idinku qaada marka dadku waxay soo tijaabiyeen in karaamo ku jirto noloshan imaka intan anigu aan noolahay kale ay ku karaamaysan tahay dhirtanu marka waanay tijaabiyeeno iyagu caafimaadkii way ka waayeen iyo sanadii ka doonayeen waxa kale oo la ii sheegay in aad wax badan ka taqaano cilmiga hawada sare ama xidigiska bal hadda taas wax nooga taabo aqoonta intan ka aqaano waa koow marka ugu horeysa meerayaasha marka xigta 8 gudeed dayax maro marka xigta dabaylaha marka xigta tirada habeenka Soomaalida oo 365 habeena sida islaamka 7 ayaamood bilaha islaamiga ah marka waxa weeyaan way tameerayaasho kale maxaad noo sheegi karaysaa meerayaasha waxa weeyaan meerayaashu sida anigu aan marka dayaxya cadeed lagu daro waa 9 laakiin imaka subaxan saaka oo kale markii laba meero qurba imka ayaamka toddobaadkii inala jooga mid weeyana salaadu halka ka soo baxay mushtar baa la yiraahdaa midna waxa la yiraahdaa oogla la yiraahdaa xaggan maqribka galabnimadii ayuu ka muuqdaa oogle iyo libca muxuu ooglena waa la yiraahdaa libtoona waa la yiraahdaa waxa xaggan galabnimada ka muuqda
intii kale waxay ku jiraan dhicitaan iyo wareeg ilaahay uu og yahay xidigta la yidhaahdo shukra taasuna imika waxay ku maqan tahay qorrax 30 habeen ayay imika dhacsanaydii la socotay shamsa qorraxda 40 way la joogaysaa dambe halkaasay dabeed ka soo baxaysaa marka halkaa markay ka dhacdo ay xagga qorrax subaxeeda ka dhacdo ay ka hooyato 70 habeen bay maqnaataa xaggaa markay ka dhacdana 7 habeen bay maqnaataa marka imika 70kii 40 habeen ka bacdi ayay xaggan ka soo baxaysaa xasan waxa kale oo la sheegay in sidaad adigu qabto in ay isku xidhan yihiin qofka iyo xilligu dhasho dabeecadda qofku yeelanayo waxyaabahaas ma saameyn bay isku leeyihiin haayo ilaahay ummadda uu samaystay reer nabi aadan adduunyada ku nool inta ka tira leegtay wuxuu ba dhalatay 28 ka guud marka hadiya jaraale waxa xadiis baa hadiya jaraale laba qof oo midna koonfur u dhashay Kismaayo kale midna uu booramo kale u dhashay oo aan cimrigooda dabeecadooda la kala dhex fadhiisano isjecel baa jira labada qof marka sayniskooda maxaa laga soo qaadi karayaa in isku god dhasheen anigu waxaan dhashay March 22keedii 66 tusaale ahaan maxaa arrinkaygu noqonaya anigoo kale March taasi waxay doonaysaa maskaxdu aad looga shaqaysiiyo laguna fadhiisiyo bishaasi xagga marka ay carabiga ka bilato waxa la doonayaa bal halkay kaga fadhiisan karto waana waqti dheer baan ka soo gudbay marka waxa weeyaan goodkan dayaxa iyaba la isqaabilsiinaya dayaxa iyaba la isqaabilsiinaya 28 good marka dadkan aad arkayso waxay 28 good maxaad uga jeedaa xasanow waxaan uga jeedaa ilaahay wuxuu abuurtay goodka la yiraahdo foocaar waa good rag iyo dumar wixii ka dhashaa waa qani baa la yiri marka ifka haday yimaadaan waxa ku xigtay godan waxa la yiri hadii maalka oo dhan la wada siiyo waa hadii ilaahay idinkiisa hadii ilaahay baa ku shaqo leh hadii jaraale waxaad oran kartaa baa la yiri xeradiisa iyo maartay wixiisu marar dhigaan tacabkiisu waxa kale oo isku xiga maran iyo mareega dheer ilaahay baana dee godadkan meesha dhigay oo bini aadan mu samayn marka mareega dheer wax walba oo mareega dheer maranna dee ilaahay baa hadii bidinkiisa dib ku taftay ku taala cilmiga saad garmis waxa xiga wabi xawdala dadka wad ka maqash waxa ku xigta babac oo iyaduna xidiga ma leh taasna ilaahay baa ku cilmi leh marka waxa kale oo iyadana xigta naaf madoobe wiilka ka dhashaa naafku madoobe ka dhashaa leeyo dhigta safar looga yeelaa hadii sakala reerka isagu ba kaliga u hadhabaalay naafka madoobe waxa ku xiga godka la yiraahdo tar ya tarna tolka dadka u dhalay baa liido kaasuna waa dad horkace marka hadda waxaasi iyadoo aynaan inaynu ku dambaabno aynaan jecelayn oo arrimaha ilaahay tasarrufkan uu iska leeyahay oo xagga ilaahay ay ku xidhan tahay gudadkuna saasi Cabdisalaam kaliye ayaha kamida waraabe iyo wamba isweydaarsaday su'aal wankiiba yiri waryaa adduunkii waa sacyo walaalowda Afrika waswaadkii imahayo wanaag baan ku wadacay warkuna waa kooban yahay wadaynimaka marrabo waddankaana iskale aan kala weydaaranne waraabo maalin wacan wowgii kale waxaan lahaa wuxuu yiri waa tahay nafsigii waayahan